السلام عليكم سو dhawaada saaxiibayaal meel badunida daafeedii tacaladeeba kaga sugantiin waa miskiintiini oo mar labaad in ku soo noqotay iyo muuqaal cusub fadhiga la iskaga kaco san anigu fadhigay ka kacayo waxaan doonayaa inaan ka hadlo maanta waa maalin murugo waxaan doonayaa inaan ka hadlo gabadh Soomaaliyeed oo dhibaar nuhaantii gabadhaas kulli dhamaantii wada aragtiin social media ay ka ooynaysaa iyadoo walibana yacni dhibaato badan iyo dayac badan uu ka muuqdo gabadha Soomaaliyeed gabadhaas waxa dhacday sad ogtiin bayduku inuu ninkeedii la guursaday gabadha badana markuu ninkeedu amba yacni culays saaro amba markuu la guursado yacni xaalad wali oo kala ay gashaa xaaladaasna xaalad laga sheekeyn karo runaantii ma aha qofka dumar ee Soomaaliyeed ba dareemi karay anu kama sheekeyn karayo balse laakiin dareenka waan la qaybsan karaya dibaayo maseerku wuxuu yahay ayaan ogahay because anu gabadheed maseer badan baan ahay gabadhaas hadaba xaaladeed aad bay u xun tahay runaantii ciyaalkeedana ninkii baa ka qaatay waxa ku leeyahay gabadhii isla waqti xaadirkan ay taaganahay ubadkeedii ma haysato yacni social media iyadoo ka ooynayso dayac badan oo ka muuqdo ka barooranaysa runaantii ayaan arkay والله بالله تالله وانيغا دارتay illa saakan daawani muuqaalkaas oo ooynay magacay leeyahay baan ku muuqaal runaantii la aamusnaan karay maba ahanba hooyo Soomaaliyeed oo ooynayso ciyaalkeedu ku dhageysa waliba waxaan ka sii qayrooday ilmaheeda yar bi ku dhageysa yaa hooyo ma waalana bay koonsasiteer ku orasa may maamo wallahi waa xaalad xanuun ah runaantii hooyooyinka Soomaaliyeed wallahi way iska dhiban yihiin ilaahay dhibka ka saaro yacni si walba haday noqoto si markay dhalayaan rafaad badan bay maraan markay korinayaan rafaad badan bay maraan yacni badana raguna culays badan bay saaraan hadaba gabadha dadku waxay ku tilmaameen inay waalan tahay balse laakiin hooyo ilmaheedii laga qaatay la xumeeyay ninku dayacay abusay waxaan ku leeyahay yacni duruuf badan way ka muuqanaysaa badana hooyooyinkeena iska anagu dumaratan nahay way iska jilicsanay ما شاء الله دبكو يعني وما أتكيسانو دبكو آد إنه قدرن يهي هو يدا صوماليات رنهانتي والله واحد جرن كرتون هو ينكيد كل ماضي المهدينا لقى قاطي يدا أركيسا هو يدا سوحن أمسني بقول إني عارف ماضي لهاي هدين كاس ونكسنا لها المهد يسقوا بقى ميل أنت وذشوغن ودريال لها وحن أجان لا والله بقول وحن أمسنها إني ونكسنا لها لكن مركونينكو كوح ماضي عدكو قرابة أنا كتير أولاد هذه لقى قاطي شيء شوكت عيدك عاونين يعني حالة أدق أي دريمسة waxa ka codsanaya dhamaan umada Soomaaliyeed ee u dhow gabadhaas inay caawimo siiyaan yacni dumarku way kala yara qalbi jilicsan yihiin dadka dumarka qaar ba ninku yacni markuu xumeeyo kaba soo noqon yacni qalbigu kaba raacaaba awlaadeeda marka laga qaato qalbigu kaba raaca balse laakiin inagu aad baan daciifunahay waxaana qurux badan dumar hadaynahay inagu isku naxariisano oo inagu is caawino hooyo ooynaysa uma dul qaadan karno sumo wallahi waan iga dhaartay markaan soo xasuustaa yacni qalbigu sib u noqon maamada Soomaaliyeed in fatxada umar in lahay dibka ka saaro in lahay caafimaad siiyo in lahay stress ka horta xanuun ka xun adduunka ma jirto stress waa ku dhacay dayac baa ka muuqdo way silicday inta nin daba carreysay bay nafteedii ilowday awlaadii waxaan ku leeyahay laga qaatay maanta cidla kaligeed meel mido ay dhex fadhidaa hadaba gabadhay mid baan ku sheegayaa moor adninka israacisid waa mar walba ka sii fogaada amba uu ka tago mar walba waxa la isku dayaa inaad iska haatid yacni dhexdhexaad balse laakiin marka qalbigeena ina siin in dhexdhexaad ahaano qalbigeena ina ma siiyo mana garan karay sababta wallahi hooyada Soomaaliyeedna dhibaato weyn boqol ay dareemisa isaguna ninkii oo dhiida ka xiran quruxdiisa adiyaabisid ma sha Allah tabarakallah ay awlaadiisa iska soo kaxaysta ciidan oo iska soo horeysay maxaa ka galay dadka ooyaya maxaa ka galay isaga mashqadiisa dad waalatid walaal hooyada reerkiina had ka waalatay awlaadaada laakiin ninka madwaalan nin kama dwaalan gabadhan waxaan ka codsanayaa in iska diiso social media ka soo ooynayso inay nafteeda si awlaadeeda dib ugu soo ceshan lahayd ay falowgeeda gasho ninkan hadii ay isaga dacwoon leeday oran ninkan uu abuse gareeyay amba uu xumeeyay uu isciyo nolosheeda rafaad buu kale korkeegana way ka muuqataa boqolkiiba boqol waxaan aaminsanaan lahaa in isaga yacni wax laga qaban lahaa wax weyn laga qaban lahaa balse laakiin dumarkiiba dee ma garanaysaa systemka waa ka yara qaldano beerjileeca way si uu ooynayso hooyadaas wallahi billahi wa tallahi qalbiga ku dhaqaaqaya baan ku qalbiga ayaa ku dhaqaaqaya xaaladdan xaalad la adkeysan karaya maaha mar walba nimanka Soomaaliyeed maamooyinka ka ooyisiiyeen way dhibaateeyaan iyadoo waxa ku dhawaaqaysa ninkaas Soomaaliyeed waa carruurteeda aabahood
erigaaso kaliya miyuu ku qiimeyn waaye caruurta ayadu ay dhashay aabahood weeye miyuu ku qiimeyn kari waaye waa maya dee hadduu garanayo caruurtayda hooyadood weeye yacni waxaa kuma sameeyeen iyadoo xaalad xun ku jirta yacni intuu awlaadii ka qaato dacweeyo sa umu kartaa laakiin garab ayuu siin lahaa garab hadduu siin lahaa saan way ka wanaagsanaan lahayd garab muu siinin dhibka uu ugu sii geysteen waxa weeye inuu awlaadeedina ka qaatay iyadiina bartaa ugaga dhaqaqay xumaan iyo waali kalena uu sii geliyay yaa marka ragga waxaan leeyahay naxariistii meeda walaal macaan naxariistii ragga lagu ogaameeday ninka ragga asoo markii gabadhu oydo yaa de garanaysaa waxa xaalad adag gali jiray oo intaas waxaan ku leeyahay dagaal laga gali jiray gabadhu oydo imika oo inta gabadha waa lagu dheeldheelaaba gabadhu hadii oydo waxa yar iisiyaaba laga soo arkaaba yaa markaas Soomaalida waliba rag maaha dumarka hablaha Soomaalida waxaan ka codsanayaa maamada inta u dhow inay garab siiyaan ilaahayna faataxan u marayna ilaahayna caawiyo garab iyo gaashaan ka dhigo xanuunka Allah keena bariga maalinkan dhiida ka xirani uu soo dhici karaa waxaan u san karaa yaa wax alla qoray weeye qoraalka Allahna marnaba deem garanaysaa qoraalka Allahna marnaba lama baajin karayo marka mar walba waxa qurux badan mar walba waxa qurux badan in maxaaytay la iscaawiyo la isgarab istaago dhammaan dadka waxaan ka codsanayaan garab istaagaan in wadaadada loogu tago in la quraan saaro inay waxaan ay sheegayso laga daaweeyo in maxaaytay ay dib u hawl gasho gabadhaas si awlaadeedu soo ceshan lahayd gabadhu waa gabadh qurux badan dayac baa dilay oo inay dayaca iska baabiisa oo nafteeda nafgelisaa waxa la yiri marka naftaada nafgelisid bande naf kalena qaadi karaysa laakiin imika adigaaga wala xaalada ku sigan wala awlaad baan waxba ku qaban kareyni naftaada dib ugu noqo walo aad beer tahay hooyadu haday waalantii haday miir qabto magaca hooyo kama waalna wax walba ay dhacaan kama waalna ilmaheeda kama waalna hooyadu markaas maamada ilaahay dibka ka saaro faataxadan u marayna ilaahay u gargaaro Soomaalida Maxamed inta wanaagsan ilaahay gabadha muslimka u gargaara ayaan leeyahay ninka Soomaaliyeedna waxa leeyahay alla qalbigaaga iyo maskaxdaada dib u kugu soo celiyo kulle maskaxdii way ka maqantay saan filaya anugu haddaad nin maskax leh ahaan lahayd waxa ma sameyseen aad ba ma sitiin dukana muuqaalkan oo kale inta ku kulmi doona sidaas iyo nabad maxamedo ilmaasha daacino dad kale ma korin karaan meenaas ma korsanay aniga indhixin wajirana ku soo caawiyey adoo xanuunsana ku soo caawiyey adoo lacagaysinna ku soo dulqaatay maanta maxay iga dhigay qof mentale maxay iga dhixinaysa